kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa Juba TV kusoo dhawaad wixii gudaha iyo daafaca caalamka laga soo gaaray aniga Fattax Durdur ayaa idin warami doona studio dhexe Muqdisho iyo warka si toos idin kaga imaanaya baraadka warkeena aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqon doona madaxweynaha hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maanta loo dhaariyay xubinimo ka mid noqoshada baarlamaanka oo aan dhicin madaxweynaha Jubbaland oo muddo hal sano ah ku kordhisaday muddo xileedkiisa ee Jubbaland waxaan xaqiijinaynaa in khasaaraha nafeed weerarkii hotel Xayaat oo la soo gabagabeeyay iyo booliiska oo war ka soo saaray wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya oo shaacisay khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerarka hotel Xayaat ee magaalada Muqdisho xildhibaan Maxamed Ibrahim Macalimo oo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ugu baaqay in gargaar caafimaad loo fidiyo dadka waxyeelada ka soo gaartay weerarka hotel Xayaat ee magaalada Muqdisho madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland oo kulan isxog wareysi ah la qaatay shacabka ku dhaqan gobolka Highland madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya oo maanta tababar ku soo xidhay cutubyo ka tirsan ciidamada daraawiishta maamulkaasi ee Koonfur Galbeed ee Soomaaliya wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha oo maanta dhagax dhigay dib u dayactir lagu sameynayo xarunta wasaaraddaasi akhbaaraadka dibadda ee warkeena aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqon doona Iiraan oo laga soo sheegayo biilaan baan inay ka jirto qodobadaas ayaad warkeena ku daawan doontaan anigoo Durdur ah ayaa idin warami doona studio dhexe Muqdisho ayuuna warka si toos u idin kaga imaanaya markaan u diyaar garoowa iyagoo faahfaahsan aan ku horeyna ee kulan maanta magaalada Muqdisho ay isugu imaadeen baarlamaanka ee Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa waxa ay ku meelmariyeen dhaarinta madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka oo ka mid noqonaya golaha baarlamaanka gaar ahaan golaha shacabka waxaan ka bilaabaynaa xildhibaanada sharafta leh raali ahaada dadkii soo jeedin maadaama aan ku go'aan baarlamaanka raacay inuu maaragtay sidaas waxaan ku bilaabaynaa ajendaasiisan ku soconaynaa koow dhaafta madaxweyne waxaan ku bilaabaynaa marka ajendaha sidii u qornaa ajentii hala ansaxiyo marka ajentii loo ansaxiya ajendaa waa ansax hawshaan gudgalna marka dhaarta بسم الله الرحمن الرحيم waxaan gelaynaa dhaarta oo madaxweynuhu iga daba dhihi doono dhaarta kadibna saad ogtihiin waxaa dhacaysa madaxweyne inuu xubin ka noqdo golaha shacabka oo uu toos ugu biiri karo fadhiga golaha howlka بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ku bilaabayaa magaca Ilaahay waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan xilkayga u guto si daacad ah oo ay ku jirto danta dalka dadka iyo diinta dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale dalka u taala wabillahi tawfiiq Axmed Madoobe ayaa waxa uu muddo kordhin hal sano ah oo ku darsaday muddo xileedka Jubbaland
kulan ay isugu yimaadeen baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland ayaa maanta waxa ay ku meelmariyeen in mudaxileedka madaxweynaha maamulkaasi laga dhigo 5 sano halka kulkii hore uu ahaa 4 sano. gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka ayaana ku dhawaaqay natiijada kadib markii cod gacantaag ah loo qaaday taa oo xildhibaanadu ay ku ogolaadeen in mudaxileedka madaxweynaha Jubbaland uu noqdo muddo 5 sano ah. baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland waxa uu isugu yimid wax ka bedelka dastuurka qodobadiisa 28 iyo 7aad taasoo awoodaha baarlamaanka qodobada dastuuriga u siinaya ay kala yihiin qodobka 31aad iyo qodobka 95aad oo awood u siinaya baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland inay wax ka bedelaan dastuurka amendment iyagoo ku sameynaya waxna ay ku dari karaan. sidaa daraadeed saaka baarlamaanku wuxuu isugu yimid isagoo kooramku yahay 58 in uu isagoo hore uga dooday la ansixiyo wax ka bedelka qodobada aan soo sheegnay ee 28 iyo 7 isagoo baarlamaanku adeegsanaya awoodihiisa dastuuriga waxa uu fadhiistay fadhigiisii caadiga ahaa isagoo gudanaya waajibaadkiisa waxaana wax laga bedelay qodobada 28aad iyo 7aad taasoo sheegaya teeramka 4 sano ah in laga dhigo muxuu ahaa 5 sano. sidaa darteed baarlamaanku isagoo waajibkiisa gudanaya wuxuu si aqlabiyad u ansixiyey in teeramka xukuumadda iyo baarlamaankaba si wadara loo gaarsiiyo 5 sano hadda wixii ka dambeeya sababta dastuurkeenna waxaa ogeyn wuxuu ahaa 4 sano teeramku. marka sidaa daraaddeed dood dheer kadib iyo soo jeedin 30 xildhibaan ay soo jeediyeen labadan qodob ay uga soo jeediyeen kadib waxa baarlamaanku u fadhiistay fadhigii muxuu ahaa dastuuriga ahaa wuxuuna ansixiyey in teeramka maanta laga bilaabo 21 bisha 8 ah 2022 teeramku uu 5 sano yahay taasoo mudaxileedkiisa uu ku koobnaa oo ku ekaan doono 2024 bisha August haddii la yiraahdo bisha 21 axmed madoobe oo hadda ka maqan gudaha dalka ayaana xilka loo kordhiyay oo 1 sano loogu daray. gudoomiyaha ayaana ku dhawaaqay waxaana arintaa waxa ka dhalan kara aynu kala sheekaysanay oo su'aalo aan ka weydiinay gudoomiyaha xisbiga shacabka Jubbaland Cabdiraxmaan Raabi waxaana tilmaamay in ay arintaasi tahay mid baadil ah oo aan waafaqsaneyn sharciga dalka iyo waliba kan Jubbaland. ama shalay galabtii uu telefoonka ugu soo sheegay soo Dubai jooga inay mid kordhin u sameeyaan intuu ka maqan yahay dalka waa tallaabo sharci darro ah waa tallaabo xadgudub ku ahaa dastuurka Jubbaland iyo shacabka Jubbaland oo weliba xukuumadda Axmed Madoobe waxaa yaraatay horumar iyo adeeg bulsho mid aan u fidinin marka in la sii dul saarnaado oo sharciyadii iyo xeerarkii u yaalay shacabka Jubbaland maalinba sidii la rabo loo dhigto oo la jiifiyaana banaan laga dhigto oo qodol loo fiiriyo masaalixda shakhsiga ah ee Axmed Madoobe leeyahay waxaan isleeyahay waa tallaabo sharci darro ah oo aad iyo aad u garamarsan shuruucda u yaala dalka Soomaaliya si guud ahaan iyo tan Jubbaland si gaar ahaan waxa la aqbali karana ma aha shacabka Jubbaland ma aqbali doonaan arrintaasi waxay ku noqon doontaa barnadow oo Axmed Madoobe iyo xulfadiisu ay maaragtay ay meesha kaga baxaan haddii la yiraahdo. weerar qaatay muddo 30 saacadood ayaa ugu dambeyntii booliisku waxa ay sheegeen in ay soo afjareen weerarka hotel Xayaad iyagoona faahfaahin ka bixiyay khasaaraha iyo waliba dadka halka laga soo badbaadiyay. taliyaha booliiska Xijaar oo shir jiraad magaalada Muqdisho ku qabtay ayuu arinta kaga hadlay. warkan waxa sii dheereynaysa Ikraan Shire. taliyaha booliiska Soomaaliyeed Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa sheegay in ciidanka amniga ay soo afjareen weerarkii lagu qaaday hotelka Xayaad. taliyaha ayaa sheegay in ciidanka ay soo badbaadiyeen in ka badan 106 qof oo ay ku jiraan caruur iyo haween. bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed ee dalka gudihiisa iyo dibaddiisa joogtaba la socodsiiyo
in howlgalkii ka socday hotel xayaat la soo afjaray xalay saqdii dhexe muddadii howlgalku socday hay-adaha amnigu waxay xoog saareen badbaadinta iyo badqabka muwaadiniintii goobta ku sugnaa waxayna ku guulaysteen badbaadinta dad ka badan 106 oo ay ka mid yihiin carruur iyo haween waxaan naxdin leh in meesha ay ku naf waayeen